سلام صحابي جمعة وناكسن maanta waa jimce dabcan waa maalintii hilibka iyadoo sidaa tahayna waxaa maanta ii dheeraa martiqaad fudud ayaan lahaa kadib waxaan isiri maad uga faa'iideysid asxaabtaadii kugu xidhnaa sida fiican kula socday oo soo gelisid hilibka sidaad u samaysay hilibka waxaan sameeyay hilib huuris xaniid ah baan karsaday xaniidkii lagu sheegi jiray aad kaga maarmaysa hilibka marka aad martiqaad leedahay haddaanu jileec ku ahayn hilibkaasi uunu faraha kala raacayn uunu si fiican u shiilnayn oo uunu waxaan ku uri gibigiisuba shaaxid ahayn dee waxaan ku uri ku celis weeyaan hilibkaaga markaa kaale haddabaan islaagna hilibkaasaan sameeyey waxaan soo qaatay ugu horeyn hilib ida ah anigu hilibka idahan aad uga dambeynaa ma fahantay marka hilibkayga waan soo maydhay biyo aan badnayn waanigaa ku shubay kadibna waxa aan ku darsaday zanjibiil oo laga maarmaan weeyaan zanjibiishu hilibka saas u kala taadsan ma fahantay waxaan kale oo ku darsaday liin dhanaan iyadoo la jilay ay hilibka ka qayb qaadata iyo kamsar sidoo kale waxaan ku darsaday milix si ay dhanaankiisu uu la falgalo halkaa waxaan ku soo diyaarsaday distadeedii deedajiya dee waxaan ku distadeeda gargaarada aan ka baba maarmaba halkan hilibkii markaan checks ku soo siiyay waxaan ku soo diyaarsaday xawaashiyadii aan hilibka ku huurin lahaa ayaan halkaa igu diyaara kadib waxaan halkan soo dhigtay waa basbaaskii xasaa waxa weeye meat masalaha ama hilibkii xawaashkiisa diyaarka ahaa halkaa waxaa igu jira xawaash kaari halkaa waxaa igu jira khalkii waxa halkaa ii taala huruudi halkaa waxaa ii yaala xamartii dee waxaan ku uri halkaa waxaa igu jira in yar oo xawaashki burburkiya dee waxaan ku uri labadii aan laga maarmi jirina waa kuwa waa soy sauce dibs romaankii intaa markaan isku soo qaso ama halkan soo dhigto waxaan soo qaadanayaa waxa weeyaan subagii daasadaha ku jiray anigu waxaan jecelahay subagaasi waa wuxuu leeyahay udgoon sidoo kalena waxaan kuguma kicinayo wax cilada fara badan waayo wuxuu ka samaysan yahay waa vegetable-gii ma fahantay markaa subag saxinaha dad haysatid oo ku darsanaysaa halkaana waxaan ku soo diyaarsaday kamsaradii iyo toontii intaa markaan isku soo qaso aan qaacadii subag ahaydna ku soo dhalaaliyo waa kaas muddo 40 daqiiqo markii soo wareegtay ayaa hilibkeygii aan ka dhigay hilibkii oo faraha kala raacay oo waxaan ku uri sida far iyo suur aad ugu soo goynaysid masha Allah jilaa caadiyaabtid ayaan maxay hayday ka furay naqaska kadib hilibkii wuu korsaday biyihiisii oo dhan waxaa ku jira waxa weeyaan waxaa hadhay waa subagiisii oo keliya maadaama uu ida ahaa subagiisu ma halkaa ku hadhay biyihiisii oo dhan wuu korsaday waayo jileec huuris ah buu noqday xawaashkii aan markaa soo samaystay ayaan guud ahaanba hilibka dusha ka marinayaa kor iyo hoosba kadib waxaan gelinayaa waan kusoo caseynayaa ama aan kusoo shiilayaa ovenka ayaan korka kaga soo shiidi doonaa si uu u soo shiilmo hilibkaasi oo sidii xaniidka oo kale ugu soo baxo maasha Allah hilibkii quruxda yaabtid oo macaankiisa iyo waxaan ku uri kaaliska aragna waa kaas ila soo tijaabiya kaasna bariiskii aan u diyaarsaday aan ugu talagalay in aan lagu cuno bariis aad u fudud isna macaan buu ahaa tashiishiisna inay idin soo geliyo isoo sheega waan idin soo gelinayaa halkaan waxay igu samaysnaa chickenkii iyo hilibkii dee martiqaad yar iska fudud oo hadana macaan dee waa kaas tashiishin markaan idin soo geliyo fiidiyodan aan kala idin soo bidiyo dee waxaan ku muuqaalka xaqiisa siiya ilaa ma macaanidii aan u sameeyay ayaan dila soo wadaagi doonaa markaa dee waa idinkaa sidaas iyo amaana alle